السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن وناكسن داوديال إذ لهانتين ملوبو الدنيا كجوكتان شنطة قاردة الدنكا وحن دلين هاي كسو دوادا برنامج كفانك يسوغان تا تلفزيون كقرنك صوماليا او إذن كاقي إيمان دونا استوديو تلفزيون كقرنك صوماليا دالك فيلان برنامج كا inta uu socdo waxaa igala qayb gali doona oo garabkayga midig iyo garabkayga fadhiya bidixba fanaaniin aad loo jecel yahay fanaaniin Soomaaliyeed oo Soomaalida iyo ummadoo dhan ay aad u xiiseeyaan heesahooda sidaad arkaysaan garabkayga midig waxaa fadhida fanaanad qaran idil cadow aadan dhankayga bidixna waxaa fadhiya alfanaan Imraan Maxamed Xasan barnaamijka waxa duubi doona Maxamed Cabduqaadir Daahir waxaan idila socodsiin doonaa anigoo ah Sharmaaki Abukar Amiin ee daawasho wacan idil ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliya wandhow walaal Sharmaarke waad ku mahadsan tahay aad iyo aad baanan idinku hambaleynayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed boqoshada ay ugu soo booqateen xaafadayda aad baan idinkaga mahadcelinayaa هذا مظن ان اذل وانا كسو دوينينا عمران كسو دو adigana telefishinka qaranka Soomaaliya aad iyo aad baa u mahadsantahay boqolkiiba boqol waan idinka mahadcelinaynaa booqashadiina aad noogu timaadeen magaalada waxa weeye qaranka telefishinka qarankana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan iyo dadka Soomaaliyeed annagana waan idin mahadcelinaynaa inta uu barnaamijka socdo sheekooyin badan ayaan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waraysiyo xiisiye badan ayaad la socon doontaan sidoo kale heesaha oo aan dhan walba hadda ka fiirin doona nala socda idil aan kugu bilaabo adigoo iisoo koobaya halka ku dhalatay meesha ku soo barbaartay waxbarashadaada fanka meesha ka soo gashay bal adoo inoo soo koobaya aad baad u mahadsan tahay Sharmaarke aniga waxaan ku dhashay Baydhabo waxay barbaarintayda ahayd magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Howlwadaag waxbarashadeeda Jamac Abdinaasir ayaan ku soo qaatay qofkii yaqaana hada fankana waqtiga aan soo galay waxay ahayd 96 bilowgeedii adiga shantii dhamaadka 6dii marka fankaygana waqtigaas ayuu يعني قلديسي أن قلي أي نقطة. حقيقة سوق شيء ما مقدسه ما بيدابو ما مجالك لا صومالية ما قربه. وأرون أكسن أرت مقدسه إن كو ماشي أن كسب بلابي أهيد أنا ما دام وقت جالس عنق يرنا أنا ها. اللي يمدي كرمان تفنك إذا اللي يأخذ سو جروب سيو دل فن أرت أيام كسو جدا. سيدا أحمد إنشار وقول الله ونحرسته أبتجي عمر دولة. مادام aan meesha ku jirto anoo heesay baan idil ahaan is arkay wixii ka dambeeyay waxaan ka soo bilaabay 96kii Boosaaso magaalada Boosaaso gobolka Bari kadibna waxaan noqday qurbaawida Carabaha Sacuudi Carabiya ee fankaygii si fiican ugu hirgalay halkaas ka sii wadi doonaa aan u soo jeesto Imraan haya adiga xagee ku dhalatay xagee ku soo barbaartay waxbarashadaadii fanka xagee ka soo gashay ما شاء الله تبارك الله أنا جو حنقول الشيء مقال اللي هذا قرضه قبل كركار قبل كبري بوتلان إن عاسانا وحبر الشديد يكل إلا ها ماشي اللي هذا قرضه قال كعي صونهاس أنت دي بندي نرشة وحنقول هي مدك قبل كركار fanka waxaan oran karaa sida ay idil sheegayso horta aanu heesayaan sarkay ha laakiin aniga hooyaday oo kale waa qof aad iyo aad loo yaqaan oo gabayada iyo barnaamijyada ku horeysa aabe Allah u naxariisto isaguna waa nin wuxuu ahaa gabaya caan oo la yaqaan ma ahayn laakiin waa nin gabiyo oo inta badan gabiyadiisii anaga oo kale aan xifsanahay dadka kale hadda tusaale ahaan waxa jira nin aan fanaan ahayn oo walaalkay ah oo laakiin aad iyo aad
ninkan fanka kaga dayday caamir maxamed xasan baa la yidhahdaa waa nin fanaan weyn ah oo xataa maaragtay dee inkastuusan fanka shaqo ku lahayn aniguna sidaa fanka beri hore waxaan heesi jiray xilli horeaan heesi jiray oo meelo badan laakiin fanka waxaan oran karaa 2015 November baan bilaabay saasaan oran karaa 2015 November waxaan ku bilaabay Sweden saasaan oran karaa iraado wal 96 2015 aad waan ku faraxsanahay waan kugu soo laaban doonaa labadiinaba inaan idin wareysano idinkuna soo dhaweeno telefishinka qaranka Soomaaliya idin halka hadda ka sii wadno beedhawaad ku dhalatay heest aad qaaday oo mayna waa arkay af Soomaaliga iyo lahjada maxaatiriga iyo lahjada mayga ma isku sibay ku yihiin mise mayga xooga waa su'aal isweydiin mudan oo aadna loogu baahan yahay inay dadweynaha naftirkooda ay ogaadaan aniga horta luqadayda koowaad waa mayga lahjadaada maxaatiriga labay soo galaysaa oo ku labaysan tahay waan gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo idilay maxaad ku xulatay fanka waxaan ku xushay horta waxaan waa iska hidaayad oo lama dhigi karo horta adiga raadsanaya oo xolan kara marka waa hidaayad waxaan oo xag rabbaaniya ka socotay marka tii alla un baa igu dhacday kulli saasun baa ku qofka markuu fanka soo galaayo ama fanka isaga soo raadsado ama isaga ha raadsado waxaa jira heesooyin isaga uu tijaabiyo oo fanaan ama uu ku dadaydo uu matalo heesaha marka xaafada joogtay oo aayare ama aad qaadi jirtay alaabta lagu dhaqi jiray ma sha Allah taa horena inaan u sheegan jeclahay waa fanaanad weyn oo aanan aad u jeclahay waliba Qadar Daahir Cige inkastoo hadda layla wada jeclaaday fanaaniinta dhan waxaan arkaa hadda Qadar Daahir baadooda la wada dhaha Qadar Daahir Cige hees asleedaha alla heestas maadan damin jirin inta guriga joogto of course way jirtaa waxa la isticmaali jiray nacam ha way jirtaa dadka ururayo isu tagay dhamaan la 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 wada khadrahayna soo xasuusinin waxaan soo aadayaa Imran adigana sidoo kale heesa aad dhageysan jirtay xitaa wanaagsanay maadaama gabayada aabaha xifsanta hal gabay hataa nagu sii filnaan lahaa laakiin fanka fanaaniinta heesta fanaankee ama fanaanadee ku dayan jirtay niyow aniga waxaan aad u jeclaa allaha caafiya Cabdi Tahliil Warsame fanaan qaran oo haddana maaragtay aan leeyahay Soomaalidu inay maaragtay sida u dhaamaan wax badan allaha caafiyo wax badanna way ka qabteen inta dhimanna ay dhameystiraan aan rajaynayo Soomaalidu inay dhameystiri doonaan oo dadkii soo booqday walaashay idil oo kale markay Soomaaliya tagtay ay kamid ahayd Muqdisho tagtay ay soo booqatay kamid ahayd sidaas oo kale in maaragtay fanaanka aan la ilaawin aniga aad waxaan u jeclaa Cabdi Tahliil iyo Hiba Nuuro وفدوخو ليهاي قبلها وحن آد وهي جري هو نورو اوكي عبد التهليل هيسيس هيس كميدا اسليدا الله هيستان وحكو اهد هيس كلا إنا لله هرت عبد التهليل أنا هيسيس ضمانتود آد بان وذا جعله لكن وحن آد وجعله ما واحد رفتين أنكم مغشيه جعلان الله ضمانتين وذا سيدا فرس بولالو أنحالو فراغو نوغال حيس كداقو بارو دوار كحدمو نجل بونمار halkay noo jooji yeesana la tagin Cabdi Tahliil Allah caafiyo qad inta barnaamijkan daawaneysana hala la xiriiro fanaanka waa abwaanka wala xamiista wax walba ninkii kala saar laho midkii kala sooc laho aday taladii ku seegto sidaad moodaysay maahe warhoy Soomaali baale ninkii qaado way hadda caafimaadka ilaaha haye hal lagu dadaalo idil waxa jirta markaad Muqdisho tagteen hees aad u macaan oo banaadir la dhaho fanaaniinta qaadaya baarsoolaad ku lahayd oo waliba aad u macaan badan dadka mar walba heeskaas ay dhageystaan dadka heestaas ka dhex muuqdo oo hadda dardarta ah ku jirtay qalcadda aad ku lahayd heesta ma inoo luqeyn kartaa si barnaamijkeena hore u sii galno
ها بارسولك أن كلها ونحسستا وحين أهيت إن كنت بدتو لقب حجه لقاو خيرات كان بروبي أقول لقول الصباحو heesas cajiib waaye waa hees cajiib badan oo fanaaniin cajiib badan ay ka muuqdaan oo laxankeedii eryadeedii iyo muusigadeeda intaba ay saaran yihiin haddee intii samaysay laxankii iyo inta eryada samaysay iyo inta muusigada tunta iyo dee dadkao dhan baa heestaas wadaaga waxaan rabaa in barnaamijkaaga intaan gudaha u galin hal su-aal inaan ku weydiiyo kadibna haddii jawaabtid kadibna heeska aan barnaamijka ku fur lahayn inay taada noqoto qofka fanaanka ah ee idilay fanka raba inuu soo gala maxaa is leedahay shuruudo waa looga baahan yahay waxaa arkaysaa kuwa cod laheenoo heesaya waxaa arkaysaa kuwa muusigada tumi aqaaninoo iska tumaaya waxaa arkaysaa kuwa laxanka sameyn aqoonno laxan sameynayo waxaa arkaysaa kuwa ereyada aan sameyn aqoonno abwaan aan nahay ku dhahayo ereyadii sameynayo wixii oo dhan waxay isku dhex naqdeen wax jahwareersan maxaa is leedahay qofka waa looga baahan yahay maadaama dee 96 waqti aad u fog ay tahay sharma arkow waa arrin muhiim ah inkastoo maanta fanaaniin aniga iga waaweyn ay jirto oon jeclaan lahaa horta inay igagala hor hadlaan inkastoo ay jiraan xataa inay ka hadleen iyaga aniga waxaan dhihi lahaa baahnaanshaa looga baahan yahay inta aan la gaarin waxaan dhihi lahaa qof walba wixiisa ha loo daayo kii fanaan fanaannimadiisa ha ku ekaado kii abwaan abwaannimadiisa ha ku ekaado kii muskiisanimadiisa ha ku ekaado laakiin goorma ku ekaan karaa waa marka uu yahay qofkaas fanaan ha heeso ititinkan bugtaan waxaan la wado ma aragtay in layska dhaafo oo aan been laysku sheegin aniga idil ahaanna waxaan dhihi karaa kulli ficna waxay ka bilaabataa muusikiistayaasha wayba maqlayaanbe waayo iyagaa fanaaniinta aan heesi karin jidka ka dhuminayo ها اوكي واي لين وحلب اوكي وقفكي marka waxa waaye isagana ookaydii ku soconaya garabkiisa Allah galaha abwaanada ahayna ya jidka ka dhuminaya dadka aan abwaanada ahayno macna ereyada sameeyaan aqoon tusaale waxa jiro abwaano erey inta sameeyaan hadii lala jalboonayo صح kuwana inta sheeka caadi ah ama warka hadda aniga ku sheekaysanay inta sameeya laxan saarayo marka kuwaasna abwaana dhaha eegniya wadada ka lumiyo mise inta wax ay sameeyaan sheeka yar dadkii lugooyaan oo dhahan alla abwaanata dadka la lugooynayo taas shacabka abwaaniinta waxa lugooyo waa shacabka qaarkood ma aha ay shacab qaarkood ma fahant iyagana hadda wax yar ma sii sameynayaan oo kuway sii lugooynayaan ay leeyihiin qaad sidaas lagu wada lumayaan marka ilaahay Soomaaliya waxaan ka baryayaa in ay nabad ilaahay uu nooga dhigo oo fankii la yaqaanay uu soo noqdo si loo kala baxo aniga idil ahaan taasaan ilaahay ka baryayaa waayahay idil barnaamijka heeska aan jeclaan lahaa inaan ku furo waan sheegi doonaa horta adiga tay jeclaan lahayd inaan ku furto weli ma go'aansan mid aan ku furi doono weli ma aan go'aansan laakiin mas'uulkaadan ku saaray waayahay waxaan ku furanaynaa barnaamijkeena heeska hadda anigana aabayaal badanna way daawanayaan barnaamijka aabayaalna waa duubayaan aabayaal kalena waan ag taagan yihiin heeska aabo ay aad qaada ee aadka u cajiibka ah eriyada yaa iskale laxanka yaa leh muusigada yaa tuma horta codka waa adiga ma ogahtaa heeskaas bal barnaamijka aan ku dahfuran heestaas eriyada iyo laxanka waxaa iskale abwaan cabdi duse aad baan u salaamayaa abwaankayga qaaliga ah muusigan waxaa iskale maxamed xaaji habeentana laxanka iyo mirahaba waxaa leh abwaanka iskale abwaan cabdi dusaale muusiga maxamed xaaji iskale habeentana dee codka waxaa iskale jeeke heeskan ma ugu fur okay ifkaanada ku jeclo indhaha nuurkoodiyo adan kugu dogsadaa abbaha ubadkaygiyo
jeclo indhaha nuurkoodiihow adaan kugu dogsadaa aabbaha ubadkaygiyo ifkaanadi ku jeclo indhaha nuurkoodiihow adaan kugu dogsadaa aabbaha ubadkaygiyo raga kunool haddii laysu ururiyo ayaan qoralay arkino adaa iga muuqala abbaa ubadkaygiyo adduunka raga kunool haddii laysu ururiyo ayaan qoralay arkino adaa iga muuqala abbaa ubadkaygiyo adaa unugyada qalbiga kalgacalku abuurayo araggaaga markaan arkaa naftaydu koonbaxda iyarood yag joogtid baan adduunka ku iibsan laa maan adiga iga mudan adunbaa iga mudanama adaa unugyada qalbiga kalgacalku abuurayo araggaaga markaan arkaa naftaydu koonbaxda iyarood yag joogtid baan adduunka ku iibsan laa maan adiga iga mudan adunbaa iga mudanama ani iga dhigan aabbaha ubadkaygiyo aylayska cadceeda arladoo dhan iftimiiba adaa ani iga dhigan aabbaha ubadkaygiyo udgoon badan bato adan kugu fanaya asaagay dhaafiyo abbaa ubadkaygiyo maniyo ubax soo baxo udgoon badan bato adan kugu fanaya asaagay dhaafiye aabbaha ubadkaygiyo abaabula qoyskayo
adeegaha noloshagu ilaahay ka dhigo adan ku adeecaya odhahdaada aan fulshaga weliba si adkaynaya maan adigayga mudan aduba iga mudan amaan abaabula qoyskayo adeegaha noloshagu ilaahay ka dhigo adan kugu faanaya odhahdaada aan fulshaga weliba si adkaynaya amaan adigayga mudan aduba iga mudan amaan iga mudan amaan aduba iga mudan macaan aad iyo aad marnaba aniga ma jecleen hees inay dhammaato heeskanoo kale wax isaga wanaagsaneed at least 50 daqiiq in laga dhigo iska socdo xaqiiqatan markaan ka hadlo aniga dhegeysiga heestan kamaba dhergo hadde waxaa wanaagsanaan lahayd heeskan oo jawaab ah in la helo oo nin soo qaadayo oo hadde oo asagana ku faanayo ubadkiisa hooyadii dhashay sharma arko adiga hadda waad leedahay laakiin horaaba loo yiri 100 fanaan ayaa jirta oo hadda iga maqlaysa meeshan oo iga dalbatay heestan in baarsool kale oo nin ah in loo sameeyo ما فهمت وحتى هير أبوانك إني لحريران إيجارين ما شاء الله وهست أي فاميلو دنا يقصيسا ما هست أنا كلي إني يقصيسو مركا كل ما شاء الله أنت إسكون أكسنو دنا يقصيسا ما شاء الله وكأجمع هذا لنا هست كان دي أدبان أنا جو أشعلها عمران وهذا كوسو تشيست هدي وجده إذا البصاص يساس مرة عندها اسمه قابن إيه مرة قرت هسه ما تنقرون مركا أجيان كوسو جيسني وحن ربعنا كويديو عمرانو هدي لو يراهدو فن كان مدام فنانته وحقود درسو حرفت كله حرفت الدوران لهي نيو أنا هرت وحن أد وجعلها حسابتان أد وجعلها qof walba waxbuu aad u jecel yahay xisaabtan jeclahay marka inaan xisaabta heer ka gaaro baan jeclaan lahaa marka macallin xisaabina naqataa nin oo dadka xisaabta luqada computer ku sameeyaan kuwa nuclear ibraahi wax un inaa ka gaarto inaan heer un ka gaaro waan sugayaa insha Allah maray ahaato heeskana soo qabanaysaa niyo waxaan soo qabanayaa hees la yiraahdo Sahro heestaas Sahro horta nin muusikiista oo la yaqaan oo caan ah oo aan halkan ka salaamayo oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Galayr Cabdiraxmaan Galayr baa la yiraahdaa ninkaas ayaa heesta wuxuu ka codsaday abwaankii sameeyay abwaanka sameeyay oo laxanka iyo mirahaba iskale waxa la yiraahdaa Cabdicasiis Cabdullaahi Xabad ninkaasa miraha iyo laxanka iskale ninkaasa wuxuu uga codsaday xaaskiisa siduu iigu warbixiyay marka sahradaada ma ahani waa sahradiisa nimca Sahro haddaan iraahdo magac hooyo ula baxay suu ii sheegay hooyana mid bay u bixisay aabana mid bay u bixiyay laba gabadha laakiin waa laba gabdhood nimca Sahra aad iyo aad marka heestaasaan ku bilaabi lahaa oo ninkaas saaxiibkaygi uu igu sharfay muusigana waxa tumay gacantiisa ku tumay isla Cabdiraxmaan Galayr hadda waa hees dhameystiran aad iyo aad
sarajoga muuqiyo saharo saliyo baan sii jeediyo soo jeedkaba sarajoga muuqiyo saharo saliyo baan sii jeediyo soo jeedkaba meelay saxar ku leedo tasalugo malaake meelay saxar ku leedo tasalugo malaake tasalugo malaake meelay saxar ku leedo tasalugo malaake meelay saxar ku leedo tasalugo malaake tasalugo malaake suuradiyo ayniga sahara ilaahay siiyana malawa suuleko safkii xuural caynto ku sugna jannadaho adduunyadan u soo baxay suuradiyo ayniga sahara ilaahay siiyana malawa suuleko safkii xuural caynto ku sugna jannadaho adduunyadan u soo baxay nimuusiyey calaam sujadiis noqota nimuusiyey calaam sujadiis noqota adduunugu nasiib wacan nimuusiyey calaam sujadiis noqota nimuusiyey calaam sujadiis noqota adduunugu nasiib wacan masexdo saacadaha qaar adaan kugu saleelaa saxan saxa udgoone masexdo saacadaha qaar adaan kugu saleelaa saxan saxa udgoone sagalkii arooriyay somali waad u sidataa sagalkii arooriyay somali waad u sidataa sinaysu seegi imayne
sagalkii arooriyay sumali waadu sidataa sagalkii arooriyay sumali waadu sidataa inaysu seegimayne siday aniga ila tahay sanku nefle ruuxi saara labadaanayo si jalleecin mooye sina uga jeensan maaye siday aniga ila tahay sanku nefle ruuxi saara labadaanayo si jalleecin mooye sina uga jeensan maaye nimuusiyay calaa سجدي سنقطة يمسي على سجدي سنقطة أدونه نسب عن يمسي على سجدي سنقطة يمسي على سجدي سنقطة أدونه نسب عن أديت هس وهس ضافتي وحاب أوصل لها هو تسهر إني سهل كان نقصو مرين because أنا برنامج كيا بجوجين لهن سنكون فلاش أكو جرنا أنت للرعنو يا هذه وسوجي سواني إن برنامج كيا إلو نور تسهر ياركن نقصو مرين midda kale saaxiibkaa baa dadka ugu nasiib badan dee qofkii helaa ugu nasiib badan galeer waxaa kaloo jirtay hadde sahrooyin badan oo barnaamijka daawanayo allele hadday fadhiyeenna waa istaagayaan hadday taagnaayeenna waa ciyaarayaan waa hubaal hees cajiib badan waayo waxaa waaye ani waa u istaagay idilay adaan kuga soo laabtay SNTV ayaad nagala socotaan dalka Finland stuudiyiisa ayuu idinkaga imaanayaa idil iyo Cimraan ayaa barnaamijkeennoo marti ah qaybihiisa hore ayaan weli maraynaa idil sidee u aragtaa haddii lahjad aan bedelano afmay ka hadalaane afmay hoo bahalle in rogna ka waran oo kii wareysano barnaamijka dhan ha sida ku wadaane isku labaan marka intana marka wadaan intana maaka galaan maha okay heesta hadda kahijiyaan barnaamijka heesta kinagadaas heesta hadda una kahijiyaan way nagadaase hees maymay ah waxa iska leh heestaas abwaan daafiyadu laxanka iyo mirahaba muusiga Cabdiwahaab Cantarnaajiya soo tumay okaas waxaa jirtay markii aan yara xasuusan jiray waxyaabo la isku xujeesto mayga eray isku aadan waxa kamid ahaa oo kale walaagi aan ka eri waa ka eri wala aan king erna ertimeng erti ho erna erle ka eri fad isku toosin kartaa adi bal ani bay dhow ku badalarin adaa bay dhow ku dhashay isku toosin kartaa intaas niyo naftirkeyga iga fakatay laakiin maadaama aad igu xujeysatayba waa galaan ha walaagi aan ka eri waa ka eri wala aan king erna ertimeng erti ho erna erle ka eri fad iyadoo dhaana aan dhaho walaagi aan ka dhahay waaba ka dhahay wala aan kin dhanna dhati meen dhati ho dhahayn dhahay ka dhahay fad walaagi aan ka eri waaba ka eri wala aan king erna erti meen erti waaba ka eri saki wala bo ay heska mayga soo tiri waa siyaaba heska mayga
heesta mayga ah waxaa iskale abwaan daafeedow laxanka iyo mirahaba muusiga cabdiwahaab cantarnaajiya iskale korka oo hure ka hawaysana kila ifune kurbaysana jelka ana jelka walkadudna korka oo hure ka hawaysana kila ifune kurbaysana jelka ana jelka walkadudna galay waaynoge undurmadina toho oo koyo waayte kalsari biyo kahday kanismugna kalay waaynoge undurmadina toho oo koyo waayte kalsari koki biyo kahday kanismugna koragi wadnade yaata kulunka bantay wikalanka tarinkay way ka tuugay orodayni anaka kaho koragi wadnade yaata kulunka bantay wikalanka tarinkay way ka tuugay orodayni anaka kaho kusara ay kinkase kali horalinare kirawa konku dan analamiku wali koble kusara ay kinkase kali horalinare kirawa konku dan analamiku wali
kii oo nafta dhayfadaasi waa wada waamay koyto karkayni oo gamo ka dhawaa qeyrkay ikood gamo ka dhawaa qeyrkayna ikood kii oo nafta dhayfadaasi waa wada waamay koyto karkayni oo gamo ka dhawaa qeyrkay ikood gamo ka dhawaa qeyrkayna ikood koraagii wadnaadeeyahetaa kulunka baantay wii kalaamka kariinkay way ka tuugee orogayni anaa ka kaho koraagii wadnaadeeyahetaa kulunka baantay wii kalaamka kariinkay way ka tuugee orogayni anaa ka kaho الله 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 ايش على هس انت فاهميسو ام بفهميسو انت فاهميني اني دغيست وهورت هس جعله dartaaba kuleel ii haya dartaadaan u xanuunsanahay dartaada hadde cuntadii iiga degi weysay kaniinigii iyo cuntadii iyo wixii oo dhan muddaan ismoognahay oo dartaada isku moognahay jacayl maaharin haddee waxaa lagu soo gabagabeynayaa marka ilaahay waxaan ka baryayaa mar un agteeda inaa ama agtaada inaa ani ka soo kaco sida ma hayne mahadsanta waayahay barnaamijkii ayaa halkii inooga sii socdo cimraan ka waran bal heeska hadda manala socotay manala haadaysa diyaaradda manala saarnayd ni wallahi horta heestu hees aad u macaan weeyo aad u qiimo badan naaxiyada iyo qaabka loo qaaday aad baan uga helay kowde iyo qof wax oo dhan bal wax nooga sheeg maxaa ka fahmay horta kiniin inuu ku jiro waa dareemay kaniinigi iyo cuntadii waa ismoognahay waa muddo ismoognahay kiniin waa ka fahmay walankii sheega waxa u agana intaasna waa ka dareemay hal qalcad ama hal baarsool ka qaad heeskan والله هيس حسنا سمتر لهايو مهندورا مهرجل ادي هرتي روقتي تاسو وا سانو دغيسناي وا اقانها لكن سانو دغيسناي على قفكي جعل هنا تجعل قليتن وبالواي ادي هي برنامج كان هروسي ودنينا اوكي هيسكي انو خجينا waxaan ku xijinayaa niyow hees la yiraahdo mudug horana luxday mudug hees la yiraahdo heestu waa dhaanto baashu muduga tasna u dejisay sheekadu guriga noqoshay tagtay baay boqol inta ka soo tagna ma muqdisho inta marno oo shabeellada dhaxaysaas u marno oo hiiraan marno inta aan saas ma mudug u galnaa kolba meeshii ka dhowdahay naga gilhay meeshii ka dhowdahay heesta mudug baa la yiraahdaa erayada iskale heesta iyo laxankaba anaa sameeyay heeska iyo laxankaba anigu heeso badanaan sameeyay way jiraan abwaannimada inaan sheegto ma jeceli hees qaadidii ka ciriirinayaan maba jeceli inaan abwaannimada sheegto laakiin kolba uun laxanka wax sahlan maaha aad iyo aad waa la xameeyaa heesaha waa la xameeyaa heesaha hadda anigu aan qaadayo oo dhan muqdisho joogo oo marka wax la xameenayaan marka aad joogi jiraade wax kale wax leedahay qofkan erey inta loo kale tusaalo kale see tahada lagu raadina see ayago may see haddana hoos aalta baasa wax lee maqlay riigada xiriga ku socod ka hoos mar teembada nin baa maalin dhaweyd weydiiyey niyow sidee laxanka u samaysaa waxaan ku iri niyow wallaahi waxaan horta waa wax ilaahay baa bixiya waa wax iska nooc gooniya oo rabaaniya laakiin tusaale ahaan
hoyaalaydii oo odayaashu hoyaalay gabayga macnaha tusaale ahaan baan waxaan idhi hadda taa ma taqaanaa haa aad buu u qaadaya ma ogtahay uu ku dhuftay marka waxaan idhi iyadan laxan ka dhigayaa dhegeyso hadda ma wada joognaa hoyaalay waa isla tii laakiin laxan baa saar iyada laftigeedu waa iyadii aan la xasaar marka waxaan waa iska saas miraha markii lagu keeno marka marna kafana lagu laxameeyaa aniga qofka isagoo kaligiisa ah oo inta seembasaas ugu raadiyo ku laxameeyaa midna waa kuugu darayaa anigu fanaan waxaan ahay aan qaad cunin sigaar cabin balwad lahayn dadka inta badan adoo kaliya exactly sharmaarka oo kale taan ahay waa isla fanki laakiin inta badan dadku waxay u fikiraan laxan markii la samaynayo waa in la murqaamo iyo sheeko noocaasa mase aha waxani waa wax iska qofku uu adoon marqaamin ba iska dhigi kartaa inaa marqaansantaa muugido adoon marqaamin inta guriga iska dhex gashid marar qaar waxaa iska dhaadhicin kartaa inaa marqaansan tahay saasaa heeska ku laxamaynaysaa laakiin haddaan aqoon lahaa sida loo murqaamo way ahaan lahayd inaa iska dhigi because maba aqaani sida loo murqaamo ma aqaani ayuu waayahay marka heeskan mudug heestan horta waxaan u qaaday islaantayda qaaliga ah baarliin yuusuf cabdi baa la yidhaahdaa waa qofaan aad u jeclahay aad iyo aad waa xaaskayga qaaliga ah aadna waa u salaamayaa aniga waa baarliin maya waa baarliintayda annaga hadda qofkii xaas oo la qabo dhan sahra u ka seenaa markaa barnaamijka intoo noo socdo marka waa sahradaada okay geeyankii hablaha gaaridii mudnayd goobadaynigeed gudka sare ahayd gobolada dhexiyo geeska mudug ka timi ayada reer mudug halka ka wad waa haysaa waxaa la yidhahdaa heesta mudug geeyankii hablaha gaaridii mudnayd goobadaynigeed gudka sare ahayd gobolada dhexiyo geeska mudug ka timi gacalooyadan ku golongolo jacaylaan go'ayn laabta ku gasho gogahiya qalbiga boga kugu guntee geeyankii hablaha gaaridii mudnayd goobadaynigeed gudka sare ahayd gobolada dhexiyo geeska mudug ka timi gacalooyadan ku golongolo jacaylaan go'ayn laabta ku gasho gogahiya qalbiga boga kugu guntee
galladila inaan ku guursado guri wada degno nimca ka guurane guri wada degno nimca ka guurane قوان قول الإيا قنبري بوراري وقل حامر ممكن ليا قل دوغو كي قبي وعنا أنك قوبا يو وقف ميري جيري ومودن قل خايا قول لهي مرقورة إيقو قرقاريو إيقو قعان قشي دولة اللي يا إلا ببوذيو قوان دولة اللي يا قنبري بوراريو قل حامر ممكن لي قل دوغو كي قبي منا أنك قوبا يو وقف ميري جيري مودن قلقا يا قول لهي مرقورة إيقو قرقاريو إيقو قعان قشي inaan ku guursado guri wada degno nimca ka guurane guri wada degno nimca ka guurane هاي وهس عجيب بدن وهس لبد نعم هدي هل لك حلبة شنبر كودي لسه مذوق نوادي غير مذوق يودن واستاجس وأنا كوب بارلينتا مكل جوكتا وين جوكتا الحمد لله دي هذا حافظ سنة وضع هو ينكرته واي هاي برنامجك فنكي السوقان تلفزيون كقرن كصوماليا أي الله سعطان وحولي كاجي معنا يا استوديو هذا الكفيلان برنامجك قيبيسة ضمبه أيان هذا كسي سخينا واي هاي إذا لو كوكو صلابتي برنامجك قيبيسة ضمبان سوقارني أنت برنامجك أن هل هي هذا نصوق بن sheekooyinka fanfaniga ee qosolka inta Facebook ka aragtay ama YouTube ka aragtay ee kuugu qosolka badneed ma xasuusan kartaa oo inta Facebook ka aragtay ama YouTube ka aragtay oo inta qososhay kaliya ka yaabi هاني كوبان هي gabar la yiraahdo Naciimo Joker Naciimo Joker gabadhaas iga yaabisay
waxyaabaha ay keentaa waxay tahay waxyaabo cajiib ah waxaa jiro laba qof mitalna qofaa wuxuu iska jecel inuu qof ku diro moogta kaartay u keentay marka iyadaa la soo hujuumay in wax lagu diro la damcay mid ka daranay u dhiibtay tii xanaaqday marka tii waxaad inay dirtay iyadii xanaaqday markaas waxa loogu jawaabo amba maanan gubane maxaa adigu ugu gubay ma fahanti marka taas ay ugu qosol badnay gabadhaas Naciimo Joker waa arkay isna dhacdooyinka waxay ka sheekaysaa aadi wax jireen ka sheekaysaa siraaha aadi waayahay heeska barnaamijka ku soo gabagabeynayeen idilay haddii aan la weydiin lahaa hadii waan jeclaan lahaa inaa marka horena waa isii saadani ay igu sharafto inkastoo heeska adiga aad jeceshahay inaa ku soo gabagabaysid bila music nagu histaas mid aan dalban lahana adiga inaan ku dalban lahaa okay ayadan ku xiri lahayn tii adiga niidaada ku maya saatir way waqt heeska xabiibi waa hees cajiib badan okay heeskaas waxaan u maleynayaa aniga inta barnaamijka daawaneysay inta duubaysay inta reereena joogto in indhaha la isku qabsan doono or dhamaado wahay heeska xabiibi ayaa daawan doontaa idil aadan cabdo
samuhu ma xiriirsanaado xumana abid laguma waro adoo dhexda gaaja xidhay marabo waxa isku daa xareed ku dabaalata يا حشية وينام كحسل وحقاقا حق دور ورمائي وحنانو حقيقة سيدانو دورو آذان ركك يا حشية وينام كحسل وحقاقا waa la jalboonay heeska aad buu inoo cajibiyey heeska xabiibi xaqiiqatan qofka markuu dhegeysta isagaaba ka sheekeyn kara ereyada iyo laxanka iyo iskale ereyada iyo laxanka waxaa iskale cabdi duse heesta aabaha ubadka ninkii lahaabaa leh muusigana waxaa iskale sidii calwinkee abwaanka waa u istaagaan labadii hees way gadantay sidii calintii waa salaamay sidoo kale barnaamijka qeybihiisa dama gabagabadan marayna asxaabtaada inta ku daawanaysa iyo isleeda fursadan uga faa'iideysto salaam waad mahadsan tahay TV-ga SN TV waxaan salaamayaa horta waalidkayga aabay cadow aadan ugu horeyn ayaan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa reer cadow meel allaala dibadda iyo dalba inta ay wada joogaan waxaan salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan abwaaniinta laxamiistayaasha iyo muusikiistayaasha TV-gana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo qaas ii ah aan salaamayaa xaajigayga oo aan jeclahay iyo hooyadaydii labaad xabiiba nuur iyadana waan salaamayaa dhammaan faamilkeygana waan salaamayaa aniga ma igu dartay adigana saasaan kuugu daray idile waa maasan tahay Imraanow adan ku soo jeestay hal sheeka yar oo sheekooyinka aad la yaabto aan nooga sheekay kadibna asxaabta assalaami sidoo dhan isu wada raacay haye sheekada kugu qosolka badneed abid aragto wallahi sheekadaas waxa weeye sheeko horta waa sheeko anoo yar igu dhacday anoo yar bay igu dhacday ha macnaha sheekada anigu ma samayn laakiin aabba gacanta isoo qabtay Allah u naxariisto marka masaajida waa taqaanaa Soomaaliya waa isku dhow yihiin marka munaaradahoodu waa dheer yihiin maghrib baa la tukanaya aniga ciyaal baana waa iska taqaan ciyaalka markii xataa la sujuudo way si iyagu way waxbay fiirfiiriyaan moogtay marka waa yaraa mindhaarada kor lahayd way marka Allah u naxariiste qolaa waxay samaysay masaajidkii oo la rukuucsan yahay kan baa masaajid kala samic Allahu liman hamida laga yiri moogtay way kaceen marka aabe waa sujuusayn aabe marka gacantu yahay masaajidku wuxuu rabaa marka masaajidka meesha gudihiisa maaha waa banaanka masaajidku uu buuxsamay banaanka weeye salaad jimca ma ahayd maya waa salaad maqrib ha marka banaanka waa magaalada Boosaaso marka banaanka masjidu imaam in loo bixiyo baan u maleynaa shibiin baan u aqaan aniga waa yaraa shibiin baa loo leeyahay marka aabba Allah wuu soo daahay wuxuu ku yiri marka samic Allahu liman hamida warinaga ma hawi ama ku laabteen wallahi subhanahu wa ta'ala laakiin waa sheeko aad u qoslo oo aad ugu xusuusto ilaahu naxariista aabba in kaftamana uu ahaa kaftankiis ina dhaqaamay aad baa u kaftanta asxaabta iyo ehelka iyo qaraabada okay waxaan salaamayaa horta marka koowaad waxaan halkan aad uga salaamayaa hooyaday Khadiija Dhiilood oo aan jeclahay
aad iyo aad hooyada ii dhashay ah. waxaan kale oo ku xijinayaa hooyadayda labaad oo aan aad u jeclahay iyadana oo aad iigu weyn, xalwo faarax cali gaas. labadoodaba allaha ii daayo, aad baan u jeclahay. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta muuqayga iyo macnaha maqalkaygaba taqaan. Soomaalida dhammaan waxaan leeyahay ilaahay wadankiina ha noo toosiyo. dhammaanna waa salaamay. waxaan salaamayaa si gaar ah haddaan iraahdo, waxaa jira nin igu qaali ah oo la yidhaahdo fanaan cabdimanaan indhayare. qabiil caashiq ma yaqaan, nin hees la yidhaahdo nin qaaday oo aad iyo aad Sweden jooga oo aan aad u jeclahay, fanaan igu qaaliya. aad baan u salaamaya isagana. haddaan tan kale oo iyadu biyo kama dhibcaanka ahi waa iyadu waa marwadayda baarliin iyo caruurtayda, iyagana waa salaamaya. idinkana galayr xasan bile mubaarak daacan dad badan oo maaragtay nimco kulli iyagana akhyaarta waa salaamaya. iyo isku filan baana si guud iyo si gaaraba waa u salaamaya asxaabtayda qaaliga oo aan jeclahay. inaan badiyana waa laga yaabaa. ubax maxamuud caraale, maamo igu qaaliya, iyo nin la yidhaahdo axmed tayib bareejo loo yaqaana, isagana aad baan u salaamayaa. dhammaan dadkao dhanna waa salaamaya. adiga oo sharmaarke ana si gaaraan kuu salaamaya iyo kaamarmada maya waa gacantaan ku gelinayaa. aad iyo aad waa maasan tahay. barnaamijka SNTV ee gabagabadiisa ayaa daawanaysaan. waa fanka iyo suugaanta suudiyaha Vilan ayuu idinkaga imaanaya. barnaamijka waxaa maanta ku wareysanayna sidaad arkaysaan oo barnaamijka inta la socotayba aad ula jalboonaysa, marna saa noo raacaysa marna saa noo raacaysa. idil cadow aadan, cimraan maxamed xasan, waan u mahad celinayaa. waa mahadsantihiin. fankiina ha kobco, halkiis iyo halka sii dheer, magaciina ha jiro. waxaan si qaas ugu mahad celinayaa kamermanka barnaamijka inoo duubaya saaxiibkay maxamed cabdiqaadir daahir oo hadda marna inta waan u mahad celinayaa. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa asxaabta barnaamijka ka qayb qaadatay diyaarintiisa, maxamed unka iyo balil yare. waa anigoo sharmaake abukar amiin ah oo idin leh tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.